السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين waan idin salaamayaa daawadayaashayda meel kasta adduunka ka joogtaan maanta waanu dhoofaynaa airportkii baanu nimi waxay ahayd waxaan ku soconnaa xagga iyo Dubai insha Allah waxaanu imika diyaaradda ka qaadanaynaa airportka Seattle marka waxaanu tegaynaa on transit ku nahay New Jersey ayaan airportkeedanu ku nahay insha Allah waxaanu sii soconaynaa 6 saacadood iyo badh ilaa 7 saacadood iminka diyaaradda iyada delay baa ku dhacay way yara raagtay laakiin alxamdulilah imika wayna la kacaysaa halka waxaad ka aragtaan buurtii Mountain Rainier horan video uga soo duubay halkaasaanu tagnay haddaanad hore u daawan insha Allah waad ka arki kartaa channelkayga waxay sii soconaysaa saan idinku sheegayba 6 saacadood iyo badh east iyo west baanu kala nahay marka Seattle Washington waxay ku taalaa west coastkay ku taalaa xaggan iyo New York iyo New Jersey yana waxay ku yaalaan eastka marka haddaan idinku idhaahdo intaasoo saacadood waa anigoo ku socda waa anigoo from London to tegaya imaaraadka oo kale ama London to Addis Ababa 7 hours baa loo kala socdaa marka maxay ahayd Mareykanku aad iyo aad buu u weyn yahay imika airportkii kalaanu nimi diyaaraddeedu way soo raagtay marka gatekii ayaanu ku cararaynaa diyaaradii kale already gatekii waa la furay ilaahay maxay haytole wuu noo fududeeyey dadkii saf bay ku jiraan saad u arkayseenba alxamdulilah wayna la soo kacday dee anigu idinkama sheekeyn karo waqtigii aad iyo aad buu nooga lumay waayo magaaladii waxaan kasoo baxnay Seattle waxaan kasoo baxnay duhur habeen baan soo soconay haddana waxaanu soconay maalin haddana habeen adag waxaan idin odhan karaa un arbacaanu soo baxnay gelin dambe maalintii jimcihii gelinkii dambena waxaanu soo gaadhnay imaaraadkii alxamdulilah rabbilcaalamiin inkastoo aan intaaba horta waan hurday alxamdulilah hurdo fiican waan soo seexday laakiin dhibaatadii jirta waxay ahayd salaadihii ayaa hawada ka baxay waayo waqtigii meel alaaliya meel aad joogtid ma garanaysid ma duhur baad tukan ma casar baad tukan ma maqrib baad tukan ma cishaayi baad tukan bal adigu kaalayoo garo insha Allah aanu tagno hoteelka yaga ayuun baan u malaynaya inaan qalla samayn karno wixii aan tukanayna dee ilaahay hanoo dambi dhaafo anyway alxamdulilah waana kan waanu nimi meeshan aan dul maraynaa waxa weeyaan shaariqa iyo Dubai waxba isuma jiraan gaari taxi baad ku qaadan kartaa ood ku tegi kartaa marka anyway imika alxamdulilah wayna la soo fadhiisatay airportkii baan soo galnay waxaan tegaynaa meeshii immigrationkan tegaynaa kadibna insha Allah waxaan soo qaadanaynaa shandadaha yaga kan xabta alxamdulilah waan soo kala dhammaanay immigrationkii unfortunately we lost our bags waxay nagaga hadheen xagga iyo New Jersey ayay ku hadheen marka imika taxi baan iska qaadanaynaa hoteelkaanu tegaynaa insha Allah alxamdulilah waxyaabihii dee daruuriga ayaan u baahnayn inaan isticmaalin lahayn waan sidanaa only pajamas baa naga maqan kuwaasna insha Allah waxuun baanu raadsan doonaa imika waanu soo dhawaanay hoteelkii waanu iska seexanaynaa waanu daalanahay dad laba cisho soo socday baanu nahay I'll see you in the morning insha Allah subax wanaagsan dhammaantiin waan idin wada salaamay sheeko yaroo funny aan ugu dhacday xalay toole laakiin insha Allah hadhow baan idinka sheekayn doonaa imika hoos baan soo degnay waanu quraacanaynaa quraacdayadii baan iska cunnay alxamdulilah imikana banaankii ayaanu soo baxnay we both needed fresh air waanan idiin sheegi doonaa insha Allah sababtaan ugu baahanay hawada inaan usoo baxno halkaa waxaad ka arkaysaan al-Ittixaad Museum manaan tegin because meesha waxaan doonaynaa sida uga dhaqsaa badan inaan ka baxno halkaana masjidkaasa ku yaala waa masjid aad iyo aad u qurux badan I don't know magaciisa inuu Jumeirah mosque yahay iyo mid kale inuu yahay ma garanayo waan tegi lahayn laakiin wadada ayaa nagu dheeraatay
meesha laga soo jaro ayaa fogeyd, marka imika hoteelkiina iskaga soo noqonay. waxaan doonaynaa si u dhaqsaa badan inaan meeshan ka tagno, baskii baan sugaynaa. waxaanu tegaynaa insha allah Dubai Mall. horta hoteelkan ku jirnay waa ka Holiday Inn baa la yidhahdaa, waa international hotel. laakiin hoteelkan waxaan ku nacnay xalay toole. annagu horta waxaan booking garaysanay 3 nights, kadibna waxaan lahayn laakiin 3dii habeen maanaan ku joogin, waan cancel garaynay xalay toole markii aanu hoteelka nimiba. sababtuna waxay ahayd xagga nadaafad darrada. nadaafadiisu sidaa umay fiicnayn. I mean it was clean but at the same time waxaa jirtay ur baa jirtay, ur aad iyo aad u strong ah oon la xamili karin. by the way, halkaasi waxa weeyaan badii, hoteelka kama foga. markaa dad baan ku dejinay, waanu sii soconaynaa insha allah. hoteelkani wuxuu ahaa hoteelada caanka ah ayuu ka mid yahay, markaa nadaafadiisuna inay wanaagsanaatay ahayd. laakiin too bad, hurdadii waxaan ku iri dee annagoo wiswisan ayaanu iska seexanay. inkastoon wipes haysanan oon meeshii nadiifinay, maxay ahayd wale gacantayadu dee i taabanaysay miiskii oo kale iyo telefoonkii iyo kale iyo ma garanaysaa handleska, door handleska oo kale iyo waan iska wada nadiifinay meelaha. laakiin urta ayaa aad u strong ahayd, taas waay baan banaanka ugu soo baxnay, fresh air baan qaadanaynay. weliba qofka maaragtay asmada haysto kale ama neefta sida loo yaqaanabaad haysta, qofkaasoo kale ma u wanaagsana. marka anigu I don't recommend it. waxa weeyaan Holiday Inn Jumeirah dhinaceedu ku yaala. iminka waxaan soo galnay Dubai Mall. halkanaanu joogaynaa next few hours. halkanaan iskaga qadaynaynaa insha allah. waan iska soo daawanaynaa ilaa inta hotel kalan booking garaysanayna hadduu ilaahay yidhaahdo. so waqtiga usually checkingka waxaan u malaynaya inay 1 tahay ama 1:15. marka I think waa 1 o'clock. marka intaasaan halkan iska yara wareegaynaa insha allah. markaasna hoteelka iyaga cusub baanu tegaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo. subxaan allah, waxaa nagu dhacday dharkii oo naga lumay iyo maxay ahayd tolay hoteelkii oo naga xumaaday. insha allah halkan waqti fiican ayaan insha allah ku qaadan doonaa maanta. That's
imika taxi baanu qaadanaynaa waxaanu tegaynaa hoteelka yagii alxamdulilah. We had a great time. waanu soo cuntaynay waanu soo dharagnay inkastoon daalano dee maanta oo dhan soconay. imika alxamdulilah waa kaa hoteelka yagii wait intaan fadhiisto on shower qaato on sariirta saa isugu tuuro. waa kan hoteelkii haddaan idin tuso waa very nice, very 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 clean weeyaan. I think waa 5-star hotel. insha allah gudihiisana waa kaa sidaas waa very simple, laakiin wuxuu ku fiican meesha waxa ugu wanaagsan aad seexanaysid waa inay meel nadiif ahaato, clean ahaato, ana urna lahayn waxbana lahayn. banaanka waa sidaa, waa iska very simple, inkastoo ay u baahan yihiin muraayada inay yara nadiifiyaan from outside, laakiin sida kale waxa weeyaan 10 out of 10 weeyaan. halkaas imaaradaha dhaadheer idin tusaya xaggaa shishana waa halkan ka nimi ee hoteelkii xumuunka badnaa weeyaan. simple suuli yaroo iska simple weeyaan. halkan waxaa noo yaala kettle, so shaah baan samaysanaynaa insha allah. anigu waxaan ahay tea person, my sisterna waa coffee lover weeyaan. so halkanan insha allah iska cabaynaa coffeega iyaga, and then kadib waxaan sameynaynaa maanta meelaan u soconnaa ma jirno, dharkaygii welina looma keenin. waxaan ku idhi meelaan qaban karnaaba ma jirto, dee waa shower qaata, coffeegiinana iska cabayay, snacks yarna waan haysanaa. marka haddaan casho u baahanana insha allah meeshaan kasoo cashaynaynaa hoteelka, otherwise waxaan sameynaynaa waan order garaysanaynaa online, and then we're gonna watch a movie, and then waan iska seexanaynaa insha allah. subax wanaagsan dhammaantiin, waan idin wada salaamayaa. imika waa quraacdii, quraac baan cunaynaa insha allah. by the way, last night shandadahayga waana loo keenay around 11 o'clock. anuu waaban hurdaya, laakiin albaabka markiina lagu soo garaaco walaalaa ka furtay alxamdulilah. inkastoo shandada iga soo jabiyeen, laakiin haddana waan faraxsanahay alxamdulilah inaan finally dharkii iska bedelno. Looking for Timothy. Want to give you just one maybe. guys, sheeko yaro fanayaan idiin hayaa. halkanaan iska cuntaynaynay. markaa cuntada meesha hoteelku waxa weeyaan buffet weeyaan, so waxaad doontid waad cuni kartaa, laakiin you're not allowed to take any food in your room. so laguma ogolo cuntada inaad qaadatid, sidaad doontid waad cuni kartaa. maanta oo dhan fadhi ilaa dee waqtiga breakfastku ay dhammaanayso. markaa inan aad iyo aad u qurux badan oo qalanjo qoor dheera ayaana dhinac fadhiday. inantuni waxay doonaysaa markaa cuntadan inay qaadato. markaa waxay sameysaa way yara kacdaa, cunto badan 2 sinxi bay soo qaadataa. cuntadii waxay sameysaa napkin yar bay ku duubtaa, shandaday dalaq siisaa, hareeraha iska egta. macayno anagu waanu dhinac fadhinaaba, dee waaban iskugu xignaaba, kuraasidayadu miisku isku xigaa. waxaan ku ri alaabtii yareyd bay dhag shandada wif, haddana way yara eegta. waxaan idhi meenay ka xishoonayn waxaasoo kamaradoo dhan oo ilawa laga daawanaya, ina inta loo yimaado embarrassment lagu sameeyo. it's so embarrassing wallahi. but anyway, iyada maxaa ka galay, waxay tiri lacagtii aan bixiyey hoteelka waa inaan kasoo matajiyo, dee kolley qadadeedii yarayd ayay ka bislaysatay halkaa. anyway, sameynina sidaa meelaha marka tagtaan, waa ceeb weeyaane. waxaad ka cuni kartid ka cun, ka dhaqaaji meesha. banaanka ayaan usoo baxnay hoteelka qaybtii swimmingka, meel lagu dabaasho buu leeyahay. anagu dee maku dabaalan karno waayo meeshu waa mixed, niman baa ka buuxa. dumarka kuma wanaagsana inay ku dabaashaan. so laakiin if you have kids or aad nin tahay, way aad bay u fiican tahay halkan inaad timaadid ood ku dabaalatid. also wuxuu leeyahay meesha masaajka lagu sameeyo duugitaanka ayuu leeyahay. hoteelkan waanu ka baxaynaa insha allah, waxaanu tegaynaa hotel kale oonu booking garaysanay. hoteelkani wuxuu u dhow yahay shaariqu u dhow yahay, marka anaguna dan baanu ka leenahay shaariqa. marka halkanaanu joogaynaa next few weeks insha allah. hotel yaroo very nice, very very clean. aniga nadaafadun baa iigu daran. imika waxaanu sameynaynaa checkinkii, alaabteedii shandadahayagina halkanaanu ku haysanaa. waxa aan sugaynaa insha allah nin baa noo qaadaya shandadaha, sanseerka nala raacaya ama liftiga nala raacaya insha allah. deetana waan idin tusi doonaa balqolka. laakiin inta ka horeysa waxaan idin tusayaa meel yaro wuxuu leeyahay coffee place ood coffeega ka cabi kartid.
or maybe a sandwich waxaad jeceshaad ka iibsanaysid and then you can grab it and go. Marka halka yar baan idin tusayaa. يسووا الملت الكمية. Finally qolkayga yaraa waanu soo galnay. It's very nice and classy and clean. Waxaan ku oray waa meel yaroo jamjama. Marka imika waanu iska nafisaynaa, waanu maydhanaynaa insha Allah, waanu diyaar garoobaynaa. Waxaan rabnaa inaan hadhow tole casarka baxno, aan suuqa leerka la galno, oo waxaan ku sidaa u soo wareegno. Marka imika insha Allah waan idinka tegayaa. Insha Allah waa inoo iyo next vlog. aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa inaad maanta waqtigayga ila qaadateen. waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin. I'll see you next vlog insha Allah.